halkani waa isgoyska suuqa bakaaraha ee kala qaybaya degmooyinka Hodan iyo Howlwadaaga waxaana maanta oo Jimcaha howlgal ka fuliyay ciidanka amniga ee booliiska Soomaaliyeed kuwaasi oo qaarijay 4 dhagarqabe oo ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab kuwaasi oo isku dayay inay dilaan agaasimo ka tirsan wasaaradda waxbarashada oo salaada khudbada Jimcaha ku tukanaya masjid ku yaala goobtani 4 dhagarqabe oo ciidanka ammaanka toogteen ayaa mid kamid ah waxay tahay haweeney taasi oo hub bac ku jira u qaybinaysay dhagarqabayaasha dagaalamayay iyadoo ugu dambeyn ciidamada ammaanka ay haweeneydaasi toogteen waxaa goobtani soo kormeeray gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed kuwaasi oo uga mahadceliyay saraakiisha iyo sidoo kale ciidamadii fuliyay howlgalkan muhiimka ah oo lagu qaarijiyay dhagarqabayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo dhibaato xooggan ku haya shacabka Soomaaliyeed ee jecel horumarka iyo nabadda gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax ayaa warbaahinta ku warbixiyay howlgalkan muhiimka ah oo ay fuliyeen ciidamada ammaanka isagoo ugu mahadceliyay saraakiisha iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed sida ay mar walba u garab taagayeen shacabka Soomaaliyeed howlgalkan waxa lagu dilay 3 dhagarqabe oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo qof dumar ah oo ahayd qofkii ku caawinaysay hubka ama u qarinaysay hubkii ay isticmaalayeen howlgalka bartilmaameedkiisu wuxuu ahaa agaasimaha howlaha guud ee wasaaradda waxbarashada oo halkan suuqa u dhow deegaan ku ah una badnaa waqtiyada Jimcaha inuu halkan yimaado waxaan xogta ka helnay runtii oo rabaa inaan u mahadceliyo shacabka degmada Howlwadaag gaar ahaan suuqa bakaaraha sida wanaagsan oo la shaqeeyay ciidanka booliiska xogtan waxay ahayd xog muddooyinkii u dambeeyay ee ciidanka booliiska ay ku raad joogeen nimankan waxay runtii u bartilmaameedsanaa waqtiyada uu agaasimuhu yimaado guriga oo maanta Jimco ah iyo masaajidka iyo gurigiisa inta u dhaxaysa sida ogtihiin waxa muddooyinkii dambe aad u xooganaa nimankan dhagarqabayaasha inay dadka masaajidka ama salaada ku soo tukada masaajidada inay bartilmaameystaan salaada kadib ciidanka booliiska ilaamaha amniga gobolka Banaadir waxay xoog saareen amniga goobahaas lagu cibaadaysanayo xilliyada salaadaha laga soo baxo si cid walba halkaas ku tukanaysa ay u hesho amni waxa dhacday marka in agaasimaha loogu diyaar garoobay markii uu ka soo baxo salaada kadib way rabeen inay howlgal ku fuliyaan ciidanka oo xogta haystay waxa u suurta gashay 3 ragga ah oo howlgalka rabay inay fuliyaan iyo qofkii dumarka ahayd inay maaragtay ay ogaadaan kadibna isku dayaan inay baxsadaan oo ay dagaalameen sidaas daradeedna ay ayagu 3 ragga iyo qofkii dumarka ahaydba ay ku dhimatay sidaan oo kale ayaa ciidamada ammaanka waxay howlgalo xoogan ka wadaan degmooyinka gobolka Banaadir kaasi oo ay ku ciribtirayaan maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab kuwaasi oo dhibaato ku haya shacabka Soomaaliyeed iyagoo ka soo horjeeda horumarka iyo nabadda ummadda Soomaaliyeed Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho